ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskarabsanaya ayaa maanta si buuxda ula wareegay degmada Gurceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud halkaas oo muddo 22 casho ay ka talinayeen maamul culimadiinka Ahlus Sunna wal Jamaa iyo ciidamada daacada bishan ku jirna kowdeedii ayay ahayd markii ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaa ay la wareegeen magaalada Gurceel gacan ku haynteeda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo barihii ugu dambeeyay ku jiray diyaar garow dagaal ayaa ugu dambeyn habeenkii xalay gudaha u galay xaafado ka tirsan magaalada Gurceel saaka dagaal ku bilowday rasaas goosgoosa iyo waliba sidoo kale ciidamo isku wajahay gudaha iyo dibadda magaalada ayaa ugu dambeyn maanta galinka dambe waxa si buuxa ula wareegay magaalada Gurceel ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo kuwa galmudug oo iskarabsanaya culimadiinka Ahlus Sunna wal Jamaa ciidamada daacada ayaa la sheegay inay ka bixeen magaalada iyagoona dagaalka qaybtiisa ugu dambeysay markii dambe ku ekaaday dhanka jaamacadda ee magaalada ee waqooyiga dhacda halkaas oo ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaa daacada u hayay saraakiishoodu ay ka sameeyeen muddooyinka ay gacanta ku hayeen magaalada dhufaysi waaweyn dagaalkan ayaa waxa ka dhashay khasaare nafeed iyo mid maalba iyadoona dad tiradooda lagu qiyaasay 10 qof ay wax ka soo gaareen dagaalkaasi kuwaas oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac walow dagaalku galinka dameystaagay isla markaana aan si dhab looga warhayn khasaaraha dagaalku sababay hase haatee saraakiil ka tirsan galmudug ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyo waliba sidoo kale mid hantiyadeed wararka ayaa sheegaya in halkaasi ay ku gubteen kaalmo shidaal iyo goobo ganacsi oo maraafiicda la isku ridayay ku habsatay maraafiicda la isku adeegsanayay ayaa waxa kamid ah qoryaha loo yaqaan hoobiyaha iyo sidoo kale waliba gaadiidka dagaalka kuwa saaran iyo hubka fudfudud oo isticmaalayeen ciidamada lugta ah ee dagaalamaya saraakiisha ayaa sheegay in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen magaalada iyagoona sheegay in soo celinayaan kala dambeynta iyo sharciga magaalada wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa cambaareeyay dagaalkii Ahlus Sunna ay saaka la galeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa galmudug isagoona sheegay in iyagu soo weerareen ciidamada ayna sabab u ahaayeen in halkaasi dagaal ka dhaco bismillaahir rahmaanir rahiim shir jaraa'id waxaad ogtihiin muddo bilah in kooxaha dowladdiidka magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada Gurceel halkaas oo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansamay diideen ay keentayna in dadka shacbiga ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas bilsha ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhageysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib darro ah saaka aroornimadii hore iyagoo soo dagaalgeliyay ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da' inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid firxad iyo kala yaac waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga digayna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo lasoo qalday dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen firxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga raggii ka dambeeyey arrintan noocaasa iyo faldambiyeedyada looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakacay deegaankaasna dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan dowladduna waa taakuleynaysaa ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darajaday doonta ha lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhoweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama ha fiyoobaadaan dagaalka Gurceel ka dhacay ayaa qolada kale ay ku eedeynaysaa iyo waliba gacan sareynta in iyadu wararka ugu dambeeyay galabta laga helay Gurceel ay sheegayaan mada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda magaalada ugu gacan gashay iyadoona Ahlus Sunna wal Jamaa ay la sheegay ugu dambeyn inay isku urursadeen dhanka waqooyi ee jaamacadda magaalada Gurceel waxaana la sheegay inay ka baxeen guud ahaanba magaalada Gurceel dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale waliba kuwa galmudug ayaa sheegay inay qabteen maxaabiis u badan dhalinyaro ay soo khaldeen Ahlus Sunna wal Jamaa dagaalkan maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay saasaantiisa Gurceel ayaa maanta ugu dambeyn dhacay